ku xidhnow badda cas 24 TV. maanta ay taariikhdu tahay bisha 16 sanadka 2020 waa xarunta gobolka Gabiley uu gudoomiyaha maxkamadda gobolka ku dhaariyay Axmed Maxamed Shirwac oo buuxinaya jagada ka banaan xildhibaanada golaha deegaanka Gabiley oo ay banaysay marxuumad xildhibaan Cibaade Maax Cilmi oo cariga Ingiriiska ku geeriyootay. munaasabadan lagu dhaarinayay xildhibaanka cusub ee ka mid noqon doona golaha deegaanka Gabiley ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha maxkamadda, barasaabka gobolka, meeyarka degmada, meeyar ku-xigeenka, xildhibaanada golaha deegaanka iyo xogayaha fulinta dawladda hoose iyo mas'uuliyiin tiro badan oo halka banaysan. halka waxaan ku marnay dhaartii sharciga ahayd iyadoo ay waajib tahay xubintu intaanay shaqada bilaabin in la mariyo dhaarta kadibna ay shaqadeeda gudato. waxaan ka soo jeedinayaan xubinta kula dardaarmay oo kaliya maadaama ay kutubkii mursalka gacanta u saarnay in waajibaadkiisa si diinta islaamka iyo sinaan iyo cadaalad ay ku dheehan tahay wax weeye u fushan doona. mas'uuliyiintan gobolka iyo kan degmada Gabiley ayaa hadalka iska daba qaatay waxaana u duceeyeen xildhibaanka cusub inuu Ilaahay xilka ku asturo. markaanu qoraalka officialka u qornay commissionka qaranka Axmed Maxamed Shirwac oo maanta runtii aanu halkan gudoomiyaha maxkamadda gobol degmo oo ku hordhaariyay barasaabka iyo maamulkii gobolka iyo golaha deegaanka hortooda. ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu horeyn waxaan u rajeynaynaa cibaadada naxariistii janno ka waraabiyo. mar labaadna waxaan u duceynaynaa xubinta cusub ee golaha deegaanka ku soo biirtay ee maanta halka lagu dhaariyay. aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaa. waxaan rajeynaynaa insha Allah tacaala inaan ka faa'iideysan doono khibradda iyo waayo aragnimadiisa. ilaahay isagana xilka ku asturo. mar labaad iyo mar saddexaad runtii waxaan aad iyo aad ugu duceynaynaa xildhibaan Cibaade Maax Cilmi oo nu leenahay ilaahay qabriga ha u nuuro naxariistii jannaha ka waraabiyo iyada iyo ummadda muslimka ee inaga horeysayba. xildhibaankii cusub ay inagu soo biiriyay golaha deegaanka Gabiley xildhibaankaasi oo ay maanta u bilaabantay kulli shaqadii qaranka oo dhaartii dastuuriga ahayd ee qaranka xubintaasi oo ay ka baxday rabbi naxariistii jannaha ka waraabiyo xildhibaan Cibaade Maax Cilmi oo isku xisbi hayeen xubintii jagadan lahaydna xildhibaanka kulli maanta wax badan oo marna ku soo dhawo golaha deegaanka Gabiley baan ku leenahay. waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa oo nugu duceynaynaa inuu Ilaahay u fududeeyo xilka. Shirwac oo ahaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna gobolka Gabiley xildhibaan baad u tahay. Ilaahay ku fududeeyo. Ilaahay ku fududeeyo aan ku leenahay. waxaan Ilaahay ka rajeynayaa in positionkaasi Ilaahay ugu asturo. iskuma cusbin tiimka golaha deegaanka ee maanta howlgalay degmada Gabiley. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxqabadkii wixii ay qabteen. midumaan maanta codsanaya hadal kale odhan maayo maadaama maanta aanu dhaartay xubintii ay banaysay Ilaahay naxariistii jannaha siiyo Cibaade Maax Cilmi oo maanta aniga la ii dhaariyay. waxaan ummadda reer Soomaaliland iyo ummadda reer Gabiley ka codsanayaa inay soo duceeyaan oo in Ilaahay xilka ugu asturo. waajibaadkii dastuuriga ahaa runtii sharciguna ay noo jideynayay in xildhibaanka cusub ee runtii u soo biiray golaha deegaanka xildhibaan Shirwac oo ah nin weyn oo mudakara oo runtii xilka gudoomiyay xisbigana deehayay maantana ka mid noqday golaha deegaanka ee degmada Gabiley. runtii shaqadaas oo ay horay ay u haysay Allahu naxariistee xildhibaan Cibaade Maax Cilmi oo runtii ahayd xildhibaan iyadana taariikh iyo qiimo badan ku lahayd. Axmed Maxamed Shirwac waa hogaamiye, waa aqoon-yahan, waa howlkar, codkar ah isla markaana talentkiisa shakhsiyadeed yahay hogaamin. waa shakhsi aad ugu xeel dheer aqoon durugsan u leh deegaanada Soomaaliland khaasatan gobolka Gabiley. Khalid Maxamed Daahir, TV-ga Badda Cas, gobolka Gabiley. markasta meel kasta iyo waqti kasta Badda Cas 24 TV kala soco wararkii u dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan. Badda Cas 24 TV sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida Facebook, YouTube iyo sidoo kale Twitter. si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda YouTube
sidoo kale like iyo follow ku dhufo bartida aan ku leenahay page-ka badda cas 24 TV waa weelka waxa aad tabayso